Quintin wariyihii halyeyga ahaa ee loo diiday in magaciisa lagu xardho taariikhda caalamka markii ay dhacday xukuumaddii koonfurta Vietnam ee Mareykanka taageerada ka haysatay gugii 1975 Putin halkaasi ayuu joogay isaga oo matalayay garabkii ay guusha raacday ee Vietnamta waqooyi balse markii uu dagaalku dhamaaday waxa uu noqday qof la iska nacay magaciisa waxa laga tiray dhammaan taariikhda dalka Vietnam xilli galab ah oo taariikhdu ay ku beegnayd 30 Abriil 1975 ayaa waxa shir weyn oo muhiim ah ka socday aqalka madaxtooyada Sejong halkaasi oo ay ku shirayeen General Dong Van Binh Hinh iyo sidoo kale xubno ka tirsan mas'uuliyiinta Vietnamta waqooyi miis weyn oo hor yaalay ayaa waxa saarnaa cuntooyin iyo sidoo kale cabitaano loogu talagalay inay cabaan balse ma aanay jirin cid u dhaqaaqaysa raashinka iyo sidoo kale cabitaanka waxa dhammaan laga fikirayay sida laga yeelayo xaaladda cakiran ee markaasi ka taagneeday dhulka Vietnam xilligaasi waxa ay ahayd dhowr saacadood ka hor kadib markii taangiyada waqooyiga Vietnam ay soo jabiyeen darbiga madaxtooyada Vietnamta koonfureed General Binh Minh isla markiiba waxa uu u gudbiyay qoraal oo ku muujinayo in uu isdhiibayo waxa uu ka sheegay raadiyaha in uu xilka ka dagayo isaga oo noqday madaxweynihii ugu dambeeyay ee dawladdii Sejong Putin markaasi waxa uu ahaa wariye ka tirsan militariga Vietnam ahna laba xidigla korneyl ah oo la shaqeeya ciidamada maamulka waqooyiga Vietnam ee markaasi dagaalka iyagu ku gacan sareeyay waxa uu ahaa sargaalka ugu darajada sareeya ee ciidankii la wareegay madaxtooyada Sejong markii la sugayay in madaxweynaha laga adkaaday uu wareejiyo awoodda maamulka Putin waxa lagu xasuustaa in madaxweynaha xilligaasi uu ku yiri maxaad wareejisaa awoodba ma lehide waxa isaga iyo sidoo kale saaxiibadii aad ay ugu faraxsanaayeen guusha u soo hoyatay garabkooda waqooyiga Vietnam isaga iyo malaayiin kale oo reer Vietnamta waqooyi ah ayaa muddo 30 sano waxay u dagaalamayeen wax ay si adag u aaminsanaayeen in ay yihiin waajib diimeed taasi oo ah inay gacanta ku soo dhigaan Vietnamta koonfureed maanta waa maalin farxad leh nabadii ayaa soo noqotay dagaalkii waa uu dhamaaday dhammaan dadka reer Vietnam waa ay wada guuleysteen kaliya kuwa dabada u dhaqayay Mareykanka ayaa guul dareystay ayuu xilligaasi ka hor yiri warbaahinta Putin markaasi oo garabkiisu ay raacday guusha muddo 10 sano markii ay ka soo wareegatay taariikh qorayaasha dalka Vietnam ayaa si buuxda uga cirib tiray magaca Putin taariikhdiisa iyo sidoo kaleba guud ahaan intii wax uu ka shaqeeyay bogagga dalka Vietnam xitaa waxa buugaagta taariikhda laga tiray sheekooyinka ku saabsan guulihii uu qaybta ka ahaa maalintaasi taariikhiga ah ee la jibiyay maamulkii koonfurta Vietnam sababta sidaas oo idin loo sameeyay ayaa waxay ahayd in Mr. Tin uu ka koostay dawladda uuna la saftay reer galbeedka dagaalkii Vietnam kadib ma aysan helin waxa loogu yeeray jannadii ay soo wadeen maamulkii bulshaawiga ee xukunka qabsaday dad fara badan ayaa ku hungoobay rajadii ay ka qabeen in xaaladdu ay sidan ka fiicnaan doonto ka hor dagaalka markii uu burburay xiriirkii taariikhiga ahaa ee Vietnam kala dhaxeeyay Shiinaha una isku bedelay dagaal waxa dalkaasi ku habsaday dhaqaale darro bahsan iyo in ay ka go'doomaan caalamka intiisa kale Putin waxa uu caro kala kulmay raggiisii ka tirsanaa dawladda laakiin markii laga dhigay tafatira ku xeynka wargeyska Nhan Dan waxa uu indhihiisa uu ku arkay tabardarida dawladda ka haysata la tacaalida dawladaha dariska iyo dhaqaalaha gugii 1990 mar lagu casuumay in uu ka qayb galo shir ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayuu go'aansaday in uu dib dambe ugu noqon magaalada Hue iyo sidoo kale guud ahaan dalka Vietnam lagama aanan filayn in uu tallaabadaasi qaado maadaama xilligaasi loo arkayay Putin in uu xubin muhiim ah uu ka yahay xukuumadda Vietnam hase ahaatee waxa uu sheegay in go'aankaasi uu qaatay kadib markii uu arkay sidii dhammaan ballamihii ay qaaday dawladda Vietnam aysan uga soo bixin Dong Van oo ah wariye rugcada ah oo ka tirsan laanta BBC-da ee waddanka Vietnam ayaa yiri bilowgii 1990 waxaan bilaabay in aan dareemo sida Mr. Tin uu si nacayay dawladdii uu isaga wax ka dhisay ilaa intii uu ka geeriyoonayay Tin waxa uu ahaa qof ay mamnuuc ka tahay
inuu cagta soo geliyo gudaha dalka Vietnam, halkaasoo isaguna ay dowladdu ay ku xanibtay inuu dalka u yimaado. waxaa mamnuuc ka ahaa inay wareystaan telefishinada dalka laga leeyahay, xitaa ma jirin hal idaacad ama telefishin iyo sidoo kale wargeys wararkiisa lagu daabici karay. dhammaan wargeysyada ka soo baxa gudaha dalka Vietnam ayaa sidoo kaleeto laga mamnuucay in ay xitaa ay baahiyaan geeridiisa. Putin waxa sidoo kaleeto intii uu noolaa laga mamnuucay in dhammaan ehelkiisa iyo sidoo kaleeto dadkii qaraabadiisa ah ay booqdaan ama ay u tagaan xilligaasi uu ku sugnaa magaalada Paris ee gudaha dalka Faransiiska. Putin ugu dambeyn waxa uu geeriyooday isaga oo 90 sano jir ah, waxaana dhammaan laga masaxay in lagu xuso taariikhda dalka Vietnam